إيران ayaa xalay weerar culus ku qaaday magaalada Tel Aviv ee dalka Israa'iil. Madaafiic culus ayaa si roobkii ugu da'ayay Israa'iil, taasi oo ku qasabtay shacabka iyo ciidamada Israa'iil in ay ku cararaan goobaha looga gambado madfacyada. Hase yeeshee xalay ma ahayn habeen raaxa leh dalka Israa'iil. Dugsiyada waxbarashada Israa'iil ayaa albaabada loo laabay. Shacabka reer Israa'iilna barkacyo ayaa lagu soo warramayaa. Iiraan waxay sheegtay in tan ay jawaab u tahay dilka loo geystay hogaamiyaha Xisbullah Xasan Nasrallah iyo Ismaaciil Haniye. Sidoo kale Iiraan waxay sheegtay in duulaankan uu yahay amar ka soo baxay hogaamiyaha diinta. 200 oo hubka nooca balastiga ayaa loo garaacay Israa'iil, walow Israa'iil oo kaashanayso ciidamada Mareykanka ay qaadeen iska caabin ah in la iska difaaco madaafiicda ku soo horeeyo. Iiraan waxay sheegeen in ay beegsanayeen kaliya saldhigyada ciidamada militariga, balse koonfur iyo waqooyiba Israa'iil dib uma yareen haba u badnaatay magaalada Tel Aviv. Muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa tusinaya shacabka reer Falastiin oo ku nool Gaza oo dabaaldegaya markay arkeen madaafiic ku horeeyo Tel Aviv. Israa'iil waxay shalay isku dayday in ay ku gasho Lubnaan, xalayna ayaga ayaa gubanayay. Israa'iil ma Lubnaan bay la dagaali doontaa? Dagaalka Xamaas ma sii wadi doontaa? Mise Iiraan ayay ka fal celin doontaa? Israa'iil weli dad ayaa afduub looga haystaa oo waxa haysato Xamaas. Madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in weerarka uu ahaa jawaab adag oo ku wajahan gardarrada Israa'iil. Ha ogaado Netanyahu in Iiraan aysan raadinin dagaal, laakiin waxay si adag uga soo horjeedaa qatar kasta, ayuu qoray madaxweynaha Iiraan. Intaasi kuma ekeene wuxuu yiri hanjabaad ah in Israa'iil ay ka fiirsato in ay dagaal la gasho Iiraan. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Iiraan ay qalad weyn samaysay, ayna arki doonto qatarteeda. Afhayeenka ciidanka militariga Israa'iil Daniel Hagarina wuxuu leeyahay Iiraan tan waa nooga dambeyn doontaa. 7 Oktoobar sanadka 2023 Xamaas ayaa duulaan ku qaaday Israa'iil. 1 Oktoobarna Iiraan ayaa duulaan taariikhi ah ku qaaday. Bisha Oktoobar sideedaba murug gaar ah ayay ku haysaa shacabka Yuhuudda. Aniguna waxaan nahay Xasan Nayman.